بسم الله magacayga waan dhigtay Firaaq Abdullaahi Axmed waxaan ka howlgalaa Tawakal Medical Clinic ku taala Kenya Nairobi waa tahay sidaad ogtahay waxaan ku guda jirnaa toddobaadka naasnuujinta caalamka laga xuso marka ugu horeyn bal hadii aan u sharaxno bulshada waa maxay naasnuujin horta waa mahadsan tahay Samira naasnuujin markaan waxaan ku jirnaa horta toddobaadkiisa u sheegtay waaye naasnuujinta ku bilowda 1 Agoosto ilaa 7 Agoosto naasnuujin markii la dhaho waxay tahay cunuga yar ama ilmaha yar oo dhashay waa inuu nuugaa naaska female-ka ama qof dumar ah marka dhahna naaska qofka dumarka ee minis ama hooyadii ha noqoto ama qof asiga barbaariye ha noqoto ayaa waxaa la yiraahdaa naasnuujin waa tahay dumarka Soomaaliyeed ma ku baraarugsan yihiin faa'iidada ay leedahay naasnuujinta ama ay cunuga u leedahay ama ay hooyada u leedahay marka dhahna faa'iidada naasnuujinta oo badata cunuga way igu jirtaa faa'iido hooyadii bulshada iyo familka afartaas qodob ee community ka kooban yihiin inta way igu jirtaa markaan galno midda cunuga wuxuu ka helayaa nafaqo dhameystiran wuxuu ka helayaa infection-ki ku dhici lahaa caabuqi ku imaan lahaa oo ka bogsado aysan ku dhicin oo carshan difaac ay u noqoto maadaama inta uu yar yahay uusan difaac lahayn midda noqoto hooyada waxay u noqonaysaa hooyooyinka badanaa markii dhalaan waxa ku yimaado waxa la yiraahdo postpartum bleeding dhiig bax imaado dhalmada kadib ayaa jiro dumarkeena qaar ay u yaqaaneen dhiigii umusha ay dhahaan dhiig bax yimaado markii hooyada dhashay kadib wuu joojinayaa hadii sameyso hooyadii naasnuujin fiican ay sameyso waxa kale uu yareenayaa riskiga imaan kara ee ku imaan kara hooyada in naaska ugu dhaco kala kansar asigana hooyadii ugu jirto waxa kale oo dan ugu jirta hooyadii in ay cunuga siiso wax loo yaqaan artificial milk sababtoo ilaahay caano ayada uu ku manaystay ayay helaysaa marka uu soo gudubno family waxa uu tahay waxa la yiraahdo family planning ama ilmaha in la kala koriyo in family uu u safe garoobo lacagtii in ay cunugii uusan u baahan isbitaal mar walba in la geeyo because uu haysta difaac ku filan markii aan dhahno bulshadii markii la soo saari lahay caano ma u baahnaana in environment-iga ama bi'adii ay wasaqowdo kale also ma u baahnaanayso in transportation la sameeyo ama wixii la booking gareeyo company soo saara kale ma loo baahnaanayo because hooyada waxay sitaa wax ayada ku filan oo ilaahay ku naystay waxa ka dhawaajisay in aan caano loo baahanayn artificial hooyooyinka qaar caano badan ma ka imaanaan si ay cunugooda u dajiyaan marka kuwaas kale maxaa xal u ah oo kaliya waxa u furan in ay caanahaas isticmaalaan waxa la yiraahdaa badanaa dumarka markay noogu yimaadaan clinic-ana waxay dhahaan caanaha nooguma filno naaska nooguma filno badanaa qayladaas waxay soo yartaa 3 bilood markuu cunuga gaaro bilaha ugu horeeya ma maqleyso hooyo kaaga caabinaysa 2 bilood iyo 1 bilood cunug jiro oo ku dhaysan naaska caanaha ku yaryahay laakiin markii 3 bilood soo gaara ayay ka caabdaan naaska inuu caanihiisa yaryahay waxa kamid ah koow in hooyadii uu siinin si frequently si joogto aysan cunugii caanihi u siinin hooyadii in ay jirto position wax la yiraahdo oo habkii cunugii loo qaban lahay mataqaan hooyadii in hooyadii aysan markuu cunuga 3 bilood soo gaaro meesha cunuga qaadi jiray awal 10 daqiiqo uu ku nuugi jiray hadda waxay noqonaysaa ma 30 daqiiqo meesha ku nuugi jiray naaska hadda waxay noqonaysaa inuu 10 daqiiqo wixii ka yar uu ku nuugo sababta waxa keenaya muscle-iska inta ayaa develop gareynaya cunuga kasoo sii weynaanaya cunuga muscle-iska markay develop gareeyaan wuxuu noqonayaa cunuga intuu caanaha ku cabi jiray in ka badan inuu ku cabo hal mar dan hooyadii waxay isleedahay naaski caano ma laha because cunugii dhaqso wixii dhameystay caano ma laha dan waxa imaana hooyadii inay caano kale oo artificial ah cunugii ay siiso hooyooyinka markay caanaha artificial ka siinayaan ma fiirinaya cunuga calooshiisa cunuga haduu baahan yahay asaa oo ilahay laakiin baahi ma jirto laakiin hooyada waxay isleedahay inta muuse ku cabi jirin in ka yar ku cabi jiray soo hadda intii in ka badan ku cabaa waqtigii haday wuxuu cabay 30 daqiiqo hadda laakiin 10 minutes ku cabaya cunuga soo wuxuu u baahan yahay caano because baahiya xasaas leedahay dan waxa imaanaya process in cunugii markuu caanihi cabo uu matago qaarkood ay habka dib ugu noqdo cunugii oo shuban ku dhaco dan shubankii markuu yimaado isbitaal la geeyo habeenkii la dhafro family problem uu yimaado dhaqaalahoodii hoos u dhaco maalin walba isbitaal la taagnaado dadkii hurdo la'aan ku dhacdo problemka uu bato sometimes waa arna qoysas dartaas isku furay oo problemka breastfeeding dartaas isku furay marka uu badan yahay soo hadii hooyada aysan aqoonin processka cunugan caanaha xilligu ku cabi jiray iyo xilliga maanta ay tahay in kala duwan tahay ee hooyada aysan ka siin ay tahay
shalay markuu intaas jiray muusan ku cabi jiray maanta muxuu uga cabiyaa because maanta muscleskiisa way develop gareeyeen calooshiisa way weynaatay intii shalay ahayd maanta ma taagno oo way ka weynaatay dhibaatada kale oo jirta waxa waaye poor position wax la dhaho ma naqaana badanaa habka ilmaha loo qaba lahay markii la siinayo naaska oo kale ayaa dhibaataas ku badan tahay waa tahay Samiro waxaan ku darsaday cunugii inuu diido naaskii uu dhaho hooyadii tiraado kuma filna taas baa ugu soo gudubna hadduu dhahdo hooyada cunugii naaska uu diidaya ilmaha inay naaska diidaan waxa keenayo nipple confusion wax la dhahayo in cunugii la siiyo masaasad lagu siiyo ama bottle ha noqoto lagu siiyo waxa ognahay injirkan ilmaha lagu siinayo caanaha wuu ka fudud yahay naaska because naaska wuxuu u baahan yahay shaqo adag inuu shaqo badan qabto cunugan because aryoolaha dhan la rabo afka inuu gashto cunugidan oo caani sida ku nuugo laakiin hadduu helo bottle yar oo markuu nuugaba caano badan u soo baxay ma u baahanayo hadhoodii inuu isticmaalo shaqo badan uu galo oo haad sameeyo asigoo yar markuu wuxuu bilaabo cunugii leesanimo sababtoo waxa bartay bottle yar oo caano inuu ku cabo si easy ugu soo baxo waa tahay marka dhibaatooyinkaas aa sheegtay ama ciladahaas way jiraan horta haweenkana way haystaan in badan oo ayaga kamid ah laga yaaba inayna fahansaneen sababtoo cunugooda caanaha u diidayo ama ay u maleeyaan in maaragtay caanaha ay iyada ka imaanayo ay yaryihiin ama ay cunug ku yaryihiin marka wadooyin aad noo bidhaamin karta ma jirta oo ayagu lagu baraarujin karo si ay maaragtay marka u fahmaan xaaladda ay ku jiraan iyo sidii ay cunugooda u muujin lahaayeen horta hooyada markii ay dhasho waxay u baahan tahay in la ajeekood gareeyo in la baro training loogu sameeyo sidii ilmaha u korsa lahayd because adduunka hadda wuxuu marayaa in la sameeyo pre-marriage counseling oo dadka inta isguursan ka hor laga cancel garay soo hooyada intaysan dhalin waxay u baahan tahay training la baro habkii ay cunugeeda u breastfeeding gareey lahayd habkii ay cunugeeda u kori lahayd habkii u abuuri lahayd because naasnuujintu waxay abuurtaa close friend inay noqdo cunugii hooyadii developmentigiisa uu kormaro hooyadii cunugii ee love ka dhex abuurmo bounds badan ay sameysmaan laakiin haddaanan aqoonin sharciyadaas waxaas aan aqoonin soo ma imaan kara marka attachmentiga cunugana wuu dhumayaa Soomaalidu waa iska ogtahay waxay isleeyihiin cunug la qabto naas la siiyo uma baahna in wax micno ah xataa haddii maaragtay hooyadii ay u baahato ma lahan goobo maaragtay lagu bixiyo casharadaas ama wax lagu fahamsiiyo hooyooyinka marka wado kale ma jirta oo ay ku heli karaan casharadaas oo maaragtay ama ay kaga baran karaan sida cunugood u haysan lahayn iyo sida wax u siin lahayn horta annaga ahaan astabaqal ahaan wax badan waa isku dayno inaan sameyno women empowerment dumarka aan kor u qaadno dumarka aan wax barno so that's why waxay keentay in hadda even naga halaawdo breastfeeding xitaa so waxa u baahanahay xitaa inaan helno trainingkaasna waxaan ku heli karnaa annaga astabaqal ahaan waan u wacnaa dumarka waan barnaa laakiin ayaga waxa laga kari laayay imaada wax barta for free wax ku barta imaada aan wax idin barno aan traininadan idin sameyno waa tahay marka aan usoo gudubnaa dhibaatooyinka ay caruurta la kulmaan haddii loo dhammaystiri waayo xilliga naasnuujinta ama in ku filan naasnuujin waayo waxaan ka wadnaa xilliga sanad to sanad ama intaasoo bilood ama intaasoo sano haddii ay heli waayaan maxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay la kulmi karaan waxay noqonaysaa dhibaatooyinka ilmihii horta waxaa loo baahan 6 bilood ugu horeysa in loo sameeyo wax yar exclusive breastfeeding WHO saasay qabtaa ilaahayna mar hore noo sheegay wuxuu yiri 2 bilood waa inaan 2 sano waa inaan nuujisaan soo marka 6 bilood ugu horeysa ha ku darin cunuga caanihiisa caano kale caanaha hooyada waxay ka kooban yihiin fats badan minerals badan ha ku jiro biyo everything ilaahay ugu dhameystiray soo laakiin dhibaato jirta marka waxa cunuga wuxuu u baahan yahay lagu leeyahay biyo caanaha hooyo ayada biyo ku jiraan biyo yaan loogu darin ilmihii haddii ay timaado dhibaato waxa keenaya caanaha lagu daray hooyada way inaysaa 6 bilood oo exclusive ah markuu cunuga sanad gaaro ama 9 bilood soo gaaro way ugu dari kartaa caanaha ugu dari kartaa marka dhibaatada taagtaas waa caanaha ugu dari kartaa caanaha hooyada waxa ku soo xiga caanaha geela la sina waa la barxayaa sababtoo ma qaadan karo dambe caana geelka waxyaabo badan laga aaminsan yahay wallahi that's issue of business waaye then marka waxay siinayaan caana lo ay aari aan dhahay because caanaha lo'da way protein badan cunugan ma shiidi karo beerkiisa laakiin haddii ba helayso hooyada caanaheeda aysan jirin wax diidi karo sida inay diidaan daawooyinka psychosis inay qaadato kale inay chemotherapy cancerka qaato ama radiotherapy ama inay qaadanayso daawo TB ama treatment TB ama active daawo TB qaadanayso kale
ayaa dili karta. laakiin cunuga dhibaatada ku imaanaysa waxay tahay cunugii nafaqo dhammaystiranna ma helaayo, cudurro dhammadana way soo weeraraan, maalin kastana isbitaal unbaa la taagnaanaysa, dan hadhow problem family aa imaanayo. waa tahay waan aan usoo gudubna dhankan dumarka iyo maaragtay dumarku way kala duwan yihiin. waxaa laga yaabaa hooyo inay leedahay caano badan oo cunugeeda ku filan yani naaskeeda caano badan uu keenayo, hooyana waxaa laga yaabaaba in maaragtay caano yar oo haddana biyo ah iyada laftirkeeda ay arki karto in cunugeeda faa'iido badan uu ka helaynin. marka hooyada ilaahay u nimceeyo maaragtay iska caano badan waaba gooni, taas uma baahna. tan maaragtay aan cunugeeda caano badan uusan ka helaynin maxay jirkeeda ku caawin kartaa si maaragtay cunugeeda ay u siiso wax ku filan? samir su-aashaas muhiim waaye, dumarkana aad bay ugu muhiimsan tahay. mida taagan waxaa waaye hooyadii caanihii cunuga ay sii lahayd haddii tiraahdo ama naaska kuma filno ama u aragto inay caanihii si uun u yaryihiin, waxaa la sameyn karaa ku horta waxaa waaye in hooyadii dietkeeda ay saxdo. hooyo qaadanayso mushaari ama shaahi caano qaadanayso, caano ma imaanayo reality-ga daa laga hadlo. bini aadankana ilaahay sameeyey, qofba ilaahay behavior u sameeyey oo dadka kale uu ugu duwan yahay, laakiin midda laga siman yahay waxaa waaye dietka. hooyo qaadatay mushaari iyo caano iyo shaah, caano inay imaadaan lagama rajeynayo. waxaa ogaataa hooyada markii kulama ay biyo badan ayada isticmaasho, inta ay cabto biyaha in la eg ayaa caanaha imaanayso, because haddii hooyada 30 daqiiqo ugu horeysa ee caano intaysan siinaaska hor ee biyo 1 litir cabto 1 litir oo caano imaanayo. laakiin haddaysan biyo cabin ee mushaari iyo shaah ka daba wareegayso ma laga yaabo caano inay imaadaan, sababtoo way sii yaraanayaan. dan markay yaraadaan waxay fahmi caanihii way yaraadeen, cunuga kuma filno, masaasada loo soo gadayaa, caano artificial la siinaya. that's the problem. xalka kaliya sameyn karto waxaa hooyadii in dietka ay saxdo, biyo badan ay isticmaasho, exercise-na ay sameyso. someone waxaa jirto oo markii uurka ay leeyihiin exercise oo macnaha exercise loo baahan yahay inay sameysaa jirto, because qof kastoo bini aadan ama murqiisu isku dhagaan tusan exercise sameyn. adduunka massage ayaa loo sameeyaa dumarka breastfeeding ka sameynaya for free ay ku halaan, laakiin in Africa free ma jirto. so at least ina exercise gurigaaga ku sameysid, dietkana ay iska saxdid. laakiin haddaan shaahi caano cabayno diet ma saxno. midda kale anaa hooyada ayadaa ku cayilaysa ee ilmihii waxba uma taraayaan. dan hooyadii markay cayisho maxaa imaanayo qofki inuu risk u noqdo inuu diabetes ku dhaco, sokor inay ku dhacdo, hooyadii macaan ku dhaco, inuu yimaado wax la yiraahdo ovarian cancer, kansarka ku dhaco ugxamaha oo hadhow isku bedelo doono PCO wax la dhahaa, iyo inuu yimaado kansarka ku dhaco naasaha. so intaas dhan waxa keenaya maxay tahay cancer basic waxa u diet. so haddii hooyadii dietkii saxdo, exercise meesha biyo badan ee cabto before cunug ee naaska siinin, healthigeedana uu dhammaystiraya, mana cayirayso hooyadii, but weight loss ay sameynaysaa. yacatooysa si fiican. waa tahay dumarka markay dhalaan Soomaalida waxaaba caadi ah inay gabadhi buurato oo maaragtay waxyaabo badan isticmaasho ayadoo ku marmarsiinayso cunuga caano iga raba ama aan naasan siinaya. aan ka soo gudubno dhibaatooyinka ay caruurta la kulmaan haddii ay heli waayaan naas nuujin ku filan ama xilligeeda loo dhammaystiri waayo. waan soo sheegnay dhibaatooyin badan, infection inuu ku dhaco, weatherka isbedelayo, marna qabowga marka kulaalka inuu weatherka saameeyo, allergic ilmihii ku yimaadaan, in ilmihii uu heli waayo nafaqo dhammaystiran uu heli waayo. aad iyo aad waa gartay. marka naas nuujinta iyo kala fogeynta carruurta ama afka qalad lagu yiraahdo family planning, waxaa laga yaabaa dumar badan inaysan fahamsanayn. mararka qaarna aan xataa aniga arkay hooyadii cunuga naas siinaysa inay uur qaado. marka sharaxaad guud ma naga siin kartaa qaabka la isku haleejin karo ama la isugu toosin karo naas nuujinta iyo family planning? waa sax, because hooyo kasta waxay kula imaanaysaa waa nuujinaya, marka waxaan u baahanahay inaan family plan qaato saana ilmo kale oon ugu qaadin. you know why? adiga ayaa hadda waxa haysata family plan-ka aad raadinaysa number 1 adiga haysto. waxa ku haysataa waxay tahay family plan-ka ilaahay ku siiyay number 1 waa breastfeeding. hadda cunuga samayso si frequent leh exclusively aad cunugan u siisid oo aad maalintii 8 mar ilaa 12 mar sida WHO tiri waa ka badin kartaa. hadda siisid cunuga wax uu radhahay ma imaanayo, even hadduusan uri ma xataa period xataa ma imaanayo haddaadan si sax u siisid cunuga naaska. hadduu yimaado ma imaan karo. dumar badan oo waxaan aragnay ayagoo naas nuujinaya oo cunuga laga dareemo in hooyadan ay uur leedahay oo cunuga caanihii ay siinayso uu ku xanuunsanayo, markaas ka bacdi ay isfahmayso ee raadinayso waxay leedahay cunugayga maxaa uu xanuunsan yahay, caanihaygu ku xanuunsanayo, uur maan leeyahay.
kabacdi waxa keenaysa waxa waa hooyada si frequently uma samayso si joogto uma samayso xilliyada hooyo hadda aragtid period ku dhacay iyadoo nuujinayso si sax ah uma nuujiso laba mid ama si frequently aysan cunuga u siinin oo caano naaska bas aysan siinin ama waxay ugu dartaa artificial milk wax la yiraahdo so that's why waxa keenaysa inuu period yimaado dan uur inay qaado laakiin haddii si sax ah u nuujiso uur ma imaanayo family balaanka meeqa mar maalinkii tusaale haddii la dhaho as WHO la raaco 8 ilaa 12 mar Allah laakiin wuu ka badin karaa qofka bini'aadamka waana ka badin kartaa oo waad awooda waxa ku sameyn kartaa hadaa liter biyo cabti before a cunuga siinin way ku filan tahay so caano badan liter caana ka soo baxay so maanta marka liter cunuga caana aasisay enough laakiin hadaa maanta wax yar intaas halka liter caana wuxuu ka soo baxay hal naas bis kama soo baxay both of them so marka hadii cunugii la siiyo caano badan haddana wax yar kadib ay siisa caano hooyo ma u baahana laakiin dhibka jiro waxa waa caaniya la iskugu celcelinaya cunugii inka marna naas siinay marna caano caadiga siinay so that's why period ku imaanaa markaas dhibaatada kala jirtana waxa waa hooyooyinka waxay dhahaan family plan ba u baahana saanan ugu qaadin that's true waxa keenaya waxa aniga waxaan ku eedeynayaa nimanka because haday dhahaan 2 years oo caadi cunugan si breastfeeding sax ah u sameey oo yaan loo soo gadin caano kale way sameyn karaan hooyooyinka oo loo train gareeyo waan gartay laakiin ragga waxay leeyihiin akaas galo hooyadu horta wax walba isku tahay guriga markay joogto si fiican wax walba guriga ayada ka qabanayso marka maalinkii oo dhan waxa laga yaabaa inay mashquulsan tahay oo iska dab wareegayso oo ilmo kale u joogaan markii xilliyadii ka kala fogeysay cunugii oo maaragtay tiradii hadda aad sheegto kale aysa siinin maalinkii naaska aysa siinin cunuga laga yaabo in maaragtay uur aysan filaynin oo ay sidaa ku qaato marka xal kale ma jiraa oo aan ka ahayn inay qaadato kaniiniyaasha oo kaniiniyaashu way qaadan kartaa oo kaniini bas ma jiro waxyaalo badan aa jirto oo cunugina uguma imaanayso oo cunugina dib uguma imaanayo laakiin su'aasha taagan waxa waa waxaad bahaysataa mid ilaahay ku siiyay oo nature ah mid dabiici ah ilaahay ku siiyaysa so ma u baahnaanaysid marka inaad mid kale oo la ilaawaayo iyo mid kale oo ayda naftirkeeda aad raadisid aad iyo aad waa tahay marka waxaan u soo gudbaynaa caruurta hooyooyin badan markay ugub yihiin iyo haddayna ugub ahayn horta taas aan dib u dhigto mid kale igaga horeyso hooyada ilmaha lagu qalo waxaa la sheegaa in aynan cunto badan qaadan karin because of qaliinkeeda waxaa kaloo la sheegaa in maaragtay cunuga uusan caano dhanba ka nuugayninba marka hooyadaas oo kale maxaa la gudboon in ay samayso waxaan kala qaadanaa dhalmada mar waxaa jirto hooyada normal ay u dhasho iyo mar ay qaliin ku dhasho hooyada marka ay dhasho 30 daqiiqo ugu horeysay cunuga adduunka uu yimaado ayaa naaska lagu bilaabaya markii saas naaska loogu bilaabo waxa yaraanayso postpartum bleeding ka imaalaha hooyada ka imaalahay possibilities way yaraanaysaa okay hooyada markii qaliin lagu sameeyo cunugii lagu qalo waxa la siinayaa cunuga 4 saac kadib ayaa cunugii la siinayaa laakiin waxa la sameeyaa waa loo miirayaa caanihii dhalana laguma siinayo waxa lagu siinayaa weel caadi ah ama koox lagu siiyo ama whatever lagu siiyo weel caadi saanan injirkaas ana noloshiisa loogu bilaabo so markii lagu siiyo caadi buu noqonaa laakiin after 4 hours kadib qaliinka ayaa la siinayaa naasna markaas ma la siinayo waxa la siinayaa dhala caadi loogu shubaya soo buku cabaya waxan injirka marka waxa leedahay dhibaatada waa injirkan lagu bilaabayo oo markuu la qabsado uu sarnaas doonayay sababta injirku ma u baahna shaqo iyo murqahan inay shaqeeyaan waa kind of lazinimada kamid ah laakiin hadii uu naaska hooyada ay noqoto wuxuu u baahan yahay inta aryoolaha dhan la isku dhaho madow inuu afka cunuga gashto oo si fiican u nuugo dan murqahana wada shaqeynaa laakiin botorka ma u baahna waa tahay hooyooyin waxaa jira stress ku qaada ama isla hadal ku qaada intay umasha ku jiraan ka bacdina joojiya ama maaragtay ay ka halawdo naasnuujintii ay ka halawdo ilmo qabsashadii ay ka halawdo oo frustration badan uu ku furmo marka iyaduna maxaa xal ah la dhihi karaa ama loo tilmaami karaa maanta topic waxaa muhiimad saaran breastfeeding laakiin hooyada ku xanuunsato breastfeeding that's another issue oo postpartum depression ha noqoto ama postpartum psychosis ha noqoto that's wuxuu noqonaa topic aan mar kale jaanis idin siin doono
laakiin muhiimadda waxa ah in hooyada ay sameyso breastfeeding laakiin haddii mar postpartum psychosis ama depression gasho hooyada breastfeeding ma sameyn karto sababtoo waxay noqonaysaa in cunugii la siiyo caana hadaa kasoo hadalna hooyada ugu xigana waa geela iyo ariga marka caanahaasana si kara oo la barxayo because waxay qaadanaysaa daawooyinkan iyo breastfeeding isma qaadila karaan markii loo fiiriyo Soomaaliya horta markii laga soo tago wadamadan iyo maaragtay kasii shishe la aado caano oo warshad ay soo sameyso oo liquid oo bac ku jira ama maaragtay caagad ku jiro baa loogu yimaadaa marka haddii ay dhahdo naaskeyga kuma filna caano booraan siina ama caano boorihii ha siinin oo hadda faa'iidooyinkiisa cunuga uma wanaagsan haddaan dhahno kasoo wareegsan oo keliya jid waxaa u furan caanahan xoolaha ama ay lo-da ku sawiran tahay ugu badan ee fridgeada ku jiro la iibiyo marka kuwaas ma siin kartaa Samir haddaan waxaan dhahnay caanaha lo-da way protein badan yihiin ma shiidi karo beerkiisa laakiin arigu wuu ka yar yahay oo ka protein badan geelana waa caanaha ku soo xiga caanaha hooyada so that's why taas ka fudud marka haddii aan la sii karin caanaha hooyada inaad taas la siiyo caanaha hooyadana conditionada diidi kara in la siiyana waa inay daawo psychosis qaadataa ama TB ama anti cancer ay qaadataa adoo cunuga saameyn ku yeelan karo waa tahay fariinta aad haweenka Soomaaliyeed u diraysid oo aad ku soo gabagabeynaysid oo ku aadan naasnuujinta iyo in la dhameystiro xilliga naasnuujinta maxay tahay waxaan leenahay horta dumarka Soomaaliyeed horta maasha Allah hooyooyin fiican mastali because attachment iyo korinta wax badan bay ka qayb qaataan laakiin waxaa loo baahan yahay in hooyo kasta oo Soomaaliyeed ay sameyso wax yiraahdo exclusive breastfeeding naasnuujin sax ah isan ku dirin caano biyo uma baahna cunigan wax kale uma baahna just wuxuu u baahan yahay naaskaagu uun so meesha acoustic kale ku bixid caanihi caaw ka dhamaade waa feed waa midnight kama gaarto banaa ina u baxdid so marka ilaahay laakiin midkaan ma u baahna inuu qof soo gado uma baahna transportation la sameeyo asaa ka easiysan wixii hore markii la soo fiirsho marka dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wuxuu idin yahay dhaqaalihii uu idin dhaqaaleena conflictyada guriga ka dhex abuurmi lahaa familka problemka imaalahay uu ka xalinaya cunugii wuxuu u yahay nafaqo dhameystiran iyo infectionka inuu ka difaaco adigii caafimaad ahaan way ku fiican tahay oo riskiyada kugu imaala inay sokorka ku dhacdo inuu kansar ku dhaco waa ka badbaadaysaa environmentigiina ma wasaqoobayo waxa lagu soo tuuro qashin lama arkayo waxaan kaloo dhihi lahay hooyada oo waxay helaysaa family planning dhameystiran family planning aad raadinaysin gacantiina ku jira family planning kale oo banaanka lagu sameeyay waxba idin ma tara waxa idin muhiimsan midka breastfeeding ina asiga uun dabaqo ilaahay wuu noo sheegay before on medicine noo sheegay ilaahay wuu noo sheegay so ilaahay wuxuu yiri 2 sano nuujiya so means 2 sano marka dawladda meesha ka soo qaatay 2 sano nuujiya markii la lahayo 6 months exclusive because waxa la rabaa inuu soo kaco immunity-kiisa marka dumarka Soomaaliyeed taas leenahay in ay sameeyaan naas nuujin sax ah naasnuujinta Soomaalida wax baa ka qaldan laakiin iyagu la jeedkoodu uu yahay inay ilmo iska daba dhalaan waa gooni marka jacayl baa abuurmay iyo bondiska ilmaha dhexdooda iyo waalidka marka waxa loo baahan yahay xitaa hadii gabadhi ay ogub tahay fast baby ay tahay hooyada inay training siiso sida cunuga loo qaba lahaa because waxyaalaha caanaha ilka dhiga kamid tahay hadii uusan poor position yimaado marka in hadii training u baahan tahay xitaa anaga as doctors ahaan waa u diyaarnaa umadeena inaan oqon because ayaga wax soo baranay so ina training u sameeyna fahamsiino breastfeeding ka waxay tahay iyo trainingadiisa inta soo gabagabeena aad soo dhawaasana asaskii dunida iyo anigu